السلام عليكم وهبال أما وحقيق إن قفل بحناقه وحوضنا بهذه تدك حناقة معرض بدن وحال شاعيين أهل سوجران تدك حنون كديك فرنك مسكحلا استوك يا خطرك لي رجع حناقة يا قيرض بدن أيا وحي هل سويهين إنه كله حنون كل هذا استوك ديك فرنك مسكحلا لنا عكل الضمر كحناقة بدن يا كل بدن أيا وحا كل إكرا عمر الدقدق arrintanna waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan xanuunka stroke-na waa marka dhiiggu maskaxda ku socdo oo kala xidhmo. Arrintani waxay dhacdaa marka xinjiro dhiig ah xirmaan xididada dhiiggu maro ama markay qarxaan xididada dhiigga ee maskaxda. Marka xididada dhiigga la qaado ee ay u socdaan hawada oksijiinka loo qaado iyo nafaqada ay gaarsiin waayaan maskaxda iyadoo ay gufeeyaan xinjiro dhiig ahi waxay dhintaa unugyada maskaxda daqiiqada gudahoodna kadibna waxaa dhacay stroke. Sidaas darteed ayaa muhiim ah in si degdeg ah loo daweeyo qofka. Daraasadan cilmi baarista ahi waxay kale oo sheegtay in ragga carada badani 10% in ka badan yihiin khatar ku jiraan marka barbardhig ragga aan carada badnayn inuu ku dhaco waxa la yiraahdo atrial fibrillation ama qofka oo afka qalaadnaado lagu yiraahdo atrial fibrillation oo ah wadnaha oo isku dhex yaaca waxayna ku dhisaa khatarta stroke. ragga dab shidka ah ee colaad horiya isla markaana xaqira dadka kale 30% waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco atrial fibrillation marka loo eego ragga degan ee nabadda jecel. sababta ragga carada badan ee ay isugu yihiin atrial fibrillation ayaa waxay tahay in qaybaha sare ee wadnaha oo aan sidii la rabay u saarin dhiigga, taasi daraadeed ay wadnaha oo sababi karto inay samaysmaan xinjiro gufeeya xididada dhiiggu marayaan kadibna qofkaas uu keeno stroke. ragga waxaa ku jira inuu kuwa yar oo xanaaqa waxaana macno lahayn ama fasalaan oo xanaaqa. waxaa kale oo weliba ku jira ragga kuwa xanaaqa badan aanay wax ka qaban karinba xanaaqooda. waxaa kale oo weliba kusii jira kuwa aan ogeyn waxay samaynayaan markay xanaaqaan. haddaba waxba kama jabna in qofku xanaaqo, laakiin waxaa xun marka uu qofku aanu ogeyn waxa uu samaynayo. qofku waa uu xanaaqaya inuu ka fikirano way ku qasbantay, taasuna waxay u keeni kartaa khasaare iyo faa'iido la'aan ka iman karta xanaaqiisa. waxaa la yidhi ka fiirsantaan falin waxaa jira waxyaabo kale oo xanaaqa qofku iskaga qaban karo inta aana ku dhicin stress ama cuduradaas khatarta ah. dadka oo dhan ay dabeecadahoodu isbedbedelaan xilliyada kala duwan ee noloshooda, laakiin markaad qabto cudurka isbedbedelka dabeecadda ayay xaaladaadu isbedbedel kartaa mid diiq iyo wax loo yaqaan waali ama cadho. taasina waxay sababeysaa in qofku bedbedelmaan cadhadiisa marka loo eego xilliyo aad oo caafimaadka qabto inta badan sanado caafimaad badan. haddaba cudurka isbedbedelka dabeecad ahaan xanaaqa dabeecadda keenta marka aad leedahay dabeecad isbedbedelaysa oo u dhaxaysa farsad badan iyo niyad-jabid badan. intaa waxaa u dhaxeeya adigoo haysta xilliyo aad caafimaad qabto. haddaba xaaladda dabeecadda waxaa loo yaqaan cadho badan, waali ama xaalado daqiiq ah. waxaa jira waxyaalo isku dhafan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan sii sheer garee janalkeena si aan u gaadhno horumar.